السلام عليكم magacaygu waa Amiin halkaad naga daawanaysaan waa kanaalka Faraxlow maanta waxa rabaa inaan ka hadlo xaqiiqooyin ku saabsan dalka Netherlands waa dal dhaca ama ku taal waqooyi galbeed ee qaaradda Yurub waxayna xuduud la leedahay dalalka kala ah Belgium iyo Jarmalka Netherlands waxay ka kooban tahay 12 gobol oo lagu kala magacaabo Limburg, Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, Noord-Brabant iyo Flevoland. Caasimadda Netherlands waa Amsterdam, ahna magaalada ugu weyn dalka Netherlands. Dalka Netherlands waxaa jira dad badan oo ugu yeera ama yiraahdo Holland, laakiin taas run ahaantii ma ahan mid sax ah. maxaa yeelay magaca Holland dhab ahaan waxaa loola jeedaa laba gobol oo dalka gudihiisa ku yaal oo lagu kala magacaabo Noord-Holland iyo Zuid-Holland. si kastaba ha noqotee dadka qaar ee u dhashay dalka Netherlands haddaad tiraahdo ama aad ku dhahdo haye ma waxaad ka timid Holland, dadka qaar ayaa laga yaabaa inay dhab ahaantii ka xumaadaan hadalkaas maxaa yeelay Holland ma ahan dal ee waa gobol ka tirsan Netherlands waa dalkii ugu horeeyay ee sharciyeeya guurka dadka isku jinsiga ah. micnaha waa dalkii ugu horeeyay ee sharciyeeya inay isguursan karaan rag iyo rag sidoo kale inay isguursan karaan dumar iyo dumar. waxyaabaha ay caan ku tahay Netherlands waxaa ka mid ah sameynta farmaajada, wax soo saarka beeraha ay dunida kaga jiraan kaalinta labaad. micnaha Netherlands waa dalka labaad ee ugu beerashada badan adduunka sidoo kale waxay inta badan dunida kaga horeeyaan dhaqashada xoolaha. luqadda rasmiga ee loogu hadlo dalka Netherlands waa Dutch. sidoo kale waxaa jira laba luqadood oo kale oo loogu hadlo dalka Netherlands sida Frisian oo loogu hadlo gobolka Friesland iyo Papiamento oo loogu hadlo jasiiradaha ABC. sidoo kale dalka Netherlands waxaa loogu hadlaa luqadda Ingiriisiga. Netherlands badkeedu wuxuu gaarayaa 41,543 kiiloomitir iskuweer waxaana ku nool in ka badan 17 milyan oo qof. Netherlands waxay ka mid tahay dalalka ugu badan ee baaskiilada laga isticmaalo waxaana la sheegaa haddii la isbarbar dhigo dadka ku nool Netherlands iyo baaskiilada inay badan yihiin baaskiilada. xitaa gawaarida iyo baaskiilada waxaa badan baaskiilada. sidoo kale baaskiiladu waxay leeyihiin wadooyin u gaar ah oo ay maraan. haddaba daawada ma ka mid tahay dadka isticmaala baaskiilada oo ku nool dalka Netherlands. dadku u dhashay dalka Netherlands waa Dutch waana dadka adduunka ugu dhirirka dheer. ragga u dhashay dalka Netherlands dhirirkooda waxaa la sheegay qiyaas ahaan 1.85 mitir halka dumarka lagu sheego 1.70 mitir. ninkii ugu horeeyay ee European ah ee taga dalka New Zealand waa nin u dhashay dalka Netherlands oo lagu magacaabo Abel Tasman. magaca dalka New Zealandna asaga ayaa u bixiyay. New Zealand waxaa loola jeedaa New waa cusub, Zealand waa gobol ka mid ah dalka Netherlands. sidaa ayuuna ku baxay magaca New Zealand. muuqaalkan halkan ayuu ku dhamaaday. waxaan filayaa inaad muuqaalkan ka heshay. haddii aad muuqaalkan ka heshay ha ilaabin inaad ku soo biirto kanaalka Faraxlow adigoo taabanaya qoraalka gaduudan ee subscribe. sidoo kale aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. muuqaalka xiga waxaan u rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xisnay inaan soo laabano. mac salaama.